qisadeedu waxay ka bilaabanaysaa xiriir qaxootiga xagga dheer baa ka imaaday. Aha. Waxaan uga imaaday inaan yacni oo shaqo raadsado oo Nairobi shaqo usoo raadsado Sax. baa uga imaaday. Waa gartay. Maxaa la dhahayay museyga aabahey curyaan waaye. Aha. Gabar kale waxaa jirta oo iga weyn oo iyadana Liibiya ku xiran baa jirto. Okay. So familka waxa u shaqeeyay markaa waayay baa Nairobi soo aaday. Sax. Nairobi waxa soo aaday shaqo inaan ka helo. Okay. Shaqadii Nairobi waa maxaa la dhahayay waxay noqotay shaqada adag oo la isku siiyay yacni xigto la isku siiyay noqotay. Aha. Shaqada kaliya oo ii soo baxday baa waxay noqotay shaqo guri. Okay. Shaqadaas ka hor gabar baa horta marka hore liigu soo xariiriyay. Aha. Gabadha markii liigu soo xariiriyay gabar kale oo ayadana oo saaxiibo aan asxaab aan igu soo xariirisay. Aha. Gabadhii baa gurigeeda ku soo degay. Sax. Gabadha gurigeeda marka ku soo degay yacni Nairobi guryaha way yar yihiin waa la isdhibsanaa meel la kala seexanayo ma laha soo maaha. Sax. gurigii markaa imaaday waa la ii soo dhaweeyay maalintii koowaad maalinta kale maxaa la dhahay gabar baa tahay yacni wax alla waxaa jeceshahay guriga waa ka samaysan kartaa guriga waa lagaa dhala camal baa la dhahay Aha. waa la ii soo dhaweeyey Sax. marka la ii soo dhaweeyey kadib baa waxaa dhacday yacni waa yara xanuunsaday Aha. hergab iyo waxaa igu dhacay Hay. ani kaliya maaha laakiin iyada laba gabdhood oo iyada ee dhashay yaani baa ahayd inta xanuunsatay Sax. so marka maamadii waxay samaysay kaniini bay soo gadaysaa kaniinigii gabadhii bay siinaysaa biyihii kaniinka way la garab dhaafaysaa aniga Aha. heer waxaa gaaray xitaa qof cadi ii gaday inaan waayo cadi ku cadiyaysto Aha. qof ii gaday inaan waayo anina lacag ku gata ma awoodin Sax. warqadii kowda hore ku soo baxay baa waxa ii soo jaray wiil oo waxa isku nahan camal baa ii soo jaray warqada Aha. يعني Oo lacag sharci ahaan wadadku sharci ahaan baa soo wadada maraysa. kusoo maray Aha. Nairobi markaa imaadana wax lacag oo haystay ama wax ku gadan kara ma haysanin Sax. marka gurigii gabadhii igu soo xirtay baa cabaar joogay gurigii waa ku yara xanuunsaday markaa ku yara xanuunsaday maamadii kaniinka markay ila garab dhaafaysaa arkay anna waxay daryeelin daryeel la-aan rafaad waxa ku cadiyaysata ma haysatid gabaraatay wax walba u baahan kartaa Sax. marka qaar cuntada waa laga dhamaysanayaa Aha. hooyada ma joogto meesha gabadhaas igu dhig cuntada ku dhahaysay Sax. markaa meesha cabaar joogay shaqaa la ii soo helay Aha. shaqada markaa la ii soo helay maamadii eedadii waa u tagay yacni eedadii laxmi maa yacni kharaaba ahayn Aha. Isku qabiil camal. isku qabiil camal ha ahayn Aha. maamadii markii la ii soo waday gurigeedaa la ii keenay waa la yaqaanaa Nairobi antii baa joogto kenyaanka naagaha kenyaanka oo shaqeeyaan Aha. aniga cunto karinaa la ii geeyey Okay. marka maamooyin kale ay shaqadii ii soo heleen markii la ii soo helay shaqadii waa iska tagay amri la waxaa dhacday inay naagta hoos ka fiijiso maamadii Aha. naagta kenyaanteedu shaqaalaha ahayd Aha. inay hoos ka fiijiso Sax. hoos markii ka fiijisay baa waxaa dhacday maxaa dhahay maamadii naagta shaqaalihii naagta shaqaalaha waxay dhahday baxday eedoy adaa lacag ku siinayaaye ii qaba shaqada Shaqadii ayda qabanaysay iyo tii adiga laga rabay isku qabo. haa Okay. u qabay dhahday Aha. marka waxaa dhahay ana qof naf lahaa ahay iskuma qaban keliye see wax u jiraan eedoy Aha. marka eedadii waxay dhahday waxaas ma jirtay haddii kale iska bax Aha. lacagtan yacni bisha markay dhammaato uu imow bay igu Aha. dhahday Marka cabaar ma waday mise isla maalintii oo lagu sheegay labada shay isku qabaa tiri ma qaban maya karo. 7 beri waa waday Aha. 7 beri dee waa isku wadi waaya qof naf lahaa ahay musqul ma dhaqi kari Nairobi guryaha la titiraa gurya ma la titiri kara qabow waa ku galaya soo maaha Sax. marka waxaa dhahay saintaa ka badan ma dul qaadin kari eedo Aha. marka waxaa dhahay haddaad u baahnayn inaad dul qaadatid marka shaqaa u imaadee eedo shaqo meelka ilaha kaaga sahlo Aha. Waa iska bixi kartaa. haa iska bixi kartaa bay Waa igu fasaxan dhahday. tahay. waa fasaxan tahay Aha. lacagtana bishii iga soo doon hadda lacag ma heli kari Aha. bay igu dhahday Aha. marka anina taleefon weyn ma haysanin soo marka wiil taleefon toosh la haystay wiilka oo yacni ilmaadeera qaraabo aan ahnaa waxay Sax. wiilkii baa wuxuu igu dhahay yacni meeshastaa jooga shaqsintiriga joogaa iyo weymo Sax. wiilkii baa wuxuu igu dhahay yacni meeshastaa jooga shaqsintiriga joogaa iyo weymo Aha. shaqsintiriga aade Sax. shaqsintiri marka aade wuxuu dhahay guriga baayay waa kana yacni walaasha ah maxaa lahay waa inaa caawisid dee waxaa guriga qaban kartid inaa ka qabo shaqada intuu ilaahay kaaga sahlaa ina iska sug Ah, marka wiilka marka wacdo waxaad tiri guriga laga soo celiyaa tiri haa waxna ma haysto waxna ma haysto marka wuxuu ku dhahay Mooto gurigaas soo raac qiimo buu dhahay anaa kaa Okay. bixinaaye Aha. cuntadii waa soo raacay Gurigiisa tagtay xaaskiisa miyaa marka mas'uulaashiisa xaaskiisa waa yacni wuxuu dhahay gabadha walaasha waa dumaashadaaye yacni caawi Aha. waxaad u samayn kartid u sameey Sax. okay dhib ma lahana dee dee guriga markaa arkay haddana markaa adi baryo joogay in la ii dhibsanaayo oo maxaa dhahay gujiga la ii bedelaayo waxaa dhahay buu shaqo ii soo raadisaan si dhaanta wax waa shaqo ii soo raadi shaqo u baahanahay Sax. okay dhib ma lahana waa kuu soo raadinayaa Aha. shaqadii waa gabar kalaa lii soo helay Sax. alhidaaya waxaa liigu belamiyey isagii waa i raacay marka ma gabdhihii 2 gabdhood ay soo dirsatay iyo wiil kaloo gaari waday 3 4 ahayn Aha. guriga markaa yacni marka gaariga tagnay oo yacni meel adii isliig ka fogsan oo kala lasho ayay ku sheegaysa magaceeda Aha. baa tagnay Sax. markaa guriga tagnay baa waxaa dhacday waxay dhahday kusoo dhawow aniga gabadha marka gabar caan uma maleynaynin Aha. ma fahantay
marka guriga markaa saa u tagnay baa waxay igu dhahday aniga soo dhawo magacayga qaaladan lahaa baraha bulshada waa taqaanaa kolley magacayga waa maqashay magacaaga maxaan dhahay waa maqlay laakiin aan baraha bulshada waxaas ma isticmaali taleefon weyn ma wati maxaan ku dhahay kolley dhib ma lahan qaaladan aa lagu dhahaa samaha qaaladan aa la yidhaha barasho wanaagsan bay igu dhahday sax marka qofkii oo inaa u shaqays lagugu geeyo waay haa okay marka waxay dhahday 12 kun ay igu shaqaynaysaa maxaa lahaa 15 kun anaa waxa ku dhashay 15 kun yacni meeqa aad jeceshay inaa ku siiyay igu dhahday marka waxa ku dhahay 15 kun aan u baahanay ka yar ma rabi maadaama gabar yar iyo maxaa lahaa dabkana lagu shidaa gabadhaas yartana lagu heenaayo sax marka waxay u dhahday maxaa lahaa anima awoodiyo 2 kun museegayga oo galiya ana lacagta aniga ma dhiiba museegayga dhiibaayo museegada waxay ka wadaa ninkeeda okay ka wadaa marka ninkayga dhiibaayo lacagta ana lacag ana dhiibaayo ma aha soo marka 12 kun oo galiya isaga igu dhahday sax okay maxaan dhahay dhib ma laha ilaan ana qof maxaa hadan iyo duruuf i haysay sax meela haysta meela seexdana ma haysanin meela maxaa lahaa cunto ka cunana ma haysanin danta igu qasabtay sax iyo duruufo jira awgood markaa tagay waa ogolaatay lacagtii waa iska ogolaaday lacagtii markaa ogolaaday baa waxay igu dhahay soo dhawow xadha ku dhahay waa dhawahay waxay kaloo igu dhahday meesha nagta waa arkaysaa guriga kaamera ku wada xiran nag kaloo anti oo shaqaalaha joogto oo kenyaati ah nagtaas iyo alisaa ku macabila laheedeen yacni saa isku fahmi laheedeen idinka idin taalaa laakiin ani waxa ku sheega adiga nagtaas inaa isla seexanaysiin maxaa dhahay qolka waa isoo tusin kartaa caadi waa dhimal waa isla seexanaynaa qolkii markay i geysay yacni qol adiga yariis uu noqday ma fahantay musqulaha nairobi camal musqulaha yaryarka camal oo yacni qol joodari hal nafar camal galay uu ahaa joodarigii marka gees camal joodari gees oo qolka xitaa u galaya nafis dhan ma lahayn marka gurigii markaa يعني جودري مركا أركي جوري إنه يري أركي وحاس ده سان معقول قال ما هي سوح وتران صح حدنا وحيد هذا قل كلا ترى ونكي إن كاميرا ذي محل هاي استوديو يحسوه مركا وحيقول هذا دم لها تقل كانت يعني أديدنته قل كلا ترى جينا يا ونكي استوديو يعني أنا أسأل على سن ولو بهاي وحيد هذا ركا قصي حنساء يعني ركا كوش قيس عما يعني ركا مسكبة دليسيد صواب يعني دقوري كاميرا كود حرن ومحل لها ملك است كاميرا كحرن إن قضوا قصر الآن أين صوت لما باهنا أنا مقلب وحرك كود تدلو به حجاب كود تدلو به قوري جمرك عريري بقدر ما يساسته وحيقول هذا يعني وحبة سكرية وحي ما كسكرية أصوحي قرعة وحد مي بيد هذا إن كان جواري دبان باسك كبدل بان باسك جواري كبدل بان باسك أنا جواري كبدل بحاول هذا حكاسو شيء درعاهم حاول حكاسو شيء رئيس كبدل marka xad muhiim ah ina bedelo muhiim waa ina bedesho dalka lama qabtid miya si jees ahaan camal ay igu dhahday yani de qofkan ku tumasho camal ma fahantay bay igu dhahday okay waxa dhahday ma lahan markii dar wax kale ii dirsatay wixii kale marka soo noqday oo yani wixii kale okay guriga soo galay wala dirci ma wadataa maxaa ka qaldan qof yar baadiyada ah bay igu dhahday ma fahantay soo marka ninkeedan uu maqlayaa at least waxa fiican qofka marka wuxuu sheegaysid inaa meel gooni ula baxdid والله waxaan si ka yihiin inaan isagay inaan dhahdo fiicanta samaha sax soo inta way meedhihiin ninka doortiisa wax walba igu dhahaysay reer ba hadda u shaqeeya alxamdulillah laakiin iyaga sida hore ima baalkiya laakiin sida ugu jira alxamdulillah laakiin sida hore ayaga ima yeelaan sida gabadha ay gashay ima yeelaan laakiin wali yani sidii arabtay ma sidii arab adii maxaa ku qasbay adoo gabar inaa meelaha shaqo ka raadaysid saas u shaqaysid familkaaga maxay qabtaan aabbahay uriyaan waaye hooyaday walaashay libiya ku xiran tahay hooyadayna ilmo yar bay haysataa ma shaqayn karto adiga ma u weyn familkaaga familka aniga gabadhaasa weyn labadiin ma wada weynaan kartiin labadiin yaa weyn iyada iga weyn libiya ku xiran tahay hadda reerka wuxuu shaqeeyaan unbaa ka jira aabbahagan maxaa ku dhaca tiri aabbahay uriyaan waaye luga laga gooye ayagana waxay joogaan ayaga waxay joogaan xaga dheer qaxootiga okay riyaa qaxootiga joogaan waa gartay marka Nairobi waa taqaanaa silceeda cid maanta wax ku gadaysa ma laha gabar baa tahay haddaa sidaas ku sii socotana waxaa noqonaysaa darbajiif iska noqonaysaa sabaha soo xoogaaga xalaasha inaad ku shaqaysato way fiican tahay sax adoo xoogaaga xalaash ku shaqaysanaysaa lagu silcinayaa lagu naxariisanaynin wax walba lagu dhahayaa oo xitaa lisdheyn qofkan Soomaali waa dhiiguni la wadaaga xitaa lisdheyn ma fahamtay sax soo dad imisa qof oo soo shaqaysaadi wax badan oo soo shaqeeya imisa family camal 4 family
marka dhibaatada aad ka sheekeynaysa maxaa gabadhaas ugu sheegaysaa ma gabadhaas unbaa dhibka u aragtay mise yani maxaa ayad u taageeraysanaysaa iyadaa ugu daran laakiin waxyaabo kale waa soo arkay laakiin iyadaa ugu daran ma fahantay dee dadka kale waxbay may dhihin waxba igama sheegin laakiin iyada way midabta kooreysay aha so hadda family la shaqeysaa maxaad macsantaa marka ayaga hadday haddan isku dhacdin kuwa kale usii tag mise yani nolosha kale sida kale maxaa rajeynaya wallaahi nolosha haddii ay isku kaa aadinaan lahayd maanta haddii lacag heli lahayd oo kale يعني ما بقى هجسن لها يعني نقول شيء ده أكو مارين كرو أسميسن لها إن واسك فاهم كرتا بريك مالنا وكل بحال أقول هيا لحسة وكل جوري ولا جالس في كنا يا غير هذا اسكو دعدين ما لسه ده قف كان جوري ما هيستو بس ما ده هيا لحسة بين ما لوس في كنا يا ما حاجة تحت وش خينا هي أو محل ده يعني قبل هذا اسكو يرد عنه وحبا ده محاس ده أساسي أنا أساسي لها اللي كرتا hooyadad bee la soo hadashay hooyadii ordis ayay imaaday waxay dhahday gabadheydii maasaan dhahday ma dhihina eedo waxaa iska dhehaysaa maya waxaas ma jirtay dhahday waa barya adoo raali ee boorsadaada qaado lacagtan bishiiguma hadda ma heli keliya baxa iska baxa saacaddan lix saac haweenimo maraysaa marka dadka soomaalida sasi u bateen naxariis la-aan waa ay kulligooda sax dad kaloo qaraaba iyo adeeryaal wax ma jiraan miya aday oo maya adeera ma jiraan waxay caawiye ma haystay inta wax qaraaba ma ku haystid meeshan aday aha so lacala haddii wax ma seef garaystaa mise wixii intii hore aa shaqaysin hadda waa kugu baxaan maya wax ma seef garaysan kara sababtoo ama maal familada waxa loo shaqeeyaa 14 kun 13 kun 12 kun loo shaqeeyaa so familkii kama badno iyo ani hataa wax kale 10 shilin baa ka reebta wax ka reebanayo inta kale waa diraa si noloshaada wax u bedeli doontaa marka noloshayda inta ay familkayga iga daran noloshayda ani dib kasta familkayga waa u mari karaa dee iga dhiban soo maaha walaalada iga yar waxay haystaan ma laha so shaqo kale ma raadisay mise un haddaa shaqo raadsid guryaasha suba ka raadisaa oo shaqaalaha ka noqotid shaqo maybe dee meela guryaasha laga shaqeey ka duwan ha noqoto maqaaxyo canjeero la dubaa oo kale maya qabiil baa halkaa wax laisku siiyaa yacni qofkan neetu waxaa waaye qabiilkayga waaye camal ama wixii dadka isxigta camal wax laisku siiyaa isku dayay inaad raadsid adi waa isku daya laakiin jaanis iyo waxaas ma u helin sababtoo qof markuu guriga shaqeynayo waxaa waaye xabsi waaye oo ma bixi karti meel ma aadi karti intee u socotaa lagu dhaha anaga managa amar qaadanine xagee aadaysaa lagu dhahayaa so 4 saa guriga aad ka shaqaysid waa shaqaysaa 4 saaca waa shaqeeyaa xitaa marka qaar markaa saxda waa liisoo kiciyaa kaali waxaan qabo waxaan dhaqo ali dhahaa qoftaan way hurdaysaa xitaa nafeleeda lisma dhaho laakiin adiga cuntaa karisaa sax ani cuntaa kariyahaa so maqaaxida oo kale cuntaa laga kariyaa sida canjeera la dubaa canjeera soomaali ha noqoto canjeer maya ha noqoto bariis ha noqoto dadkana waqtiyaal la siiyaa maybe qof wax uu shaqeynaa subaxii ilaa 8 saac oo kale lacag ahaan kaaga maxmu ku guriga kaga masku deeyna maqaaxida kariyaa shaqo noocaas oo kale ah ha laakiin shaqada waxa waaye guriga Nairobi dadka ali kireysanaysa 5 kun halkii qof Soomaha ayagana kulay 15 kun kama badna maqaaxida shaqada laga shaqeeyo okay taas marka waxa leedahay hadaa heshid oo kale waxa laga yaabaa in wili kari iyo cunto kaaga baxdo hadana ha cunto kari iga baxaysaa familka lacag iga rabaan soo taas suurtagal way noqon weyday halka kaliya aragtid oo ku sahal wuxuu noqday inaad guriyaash ka shaqaysid ha inta soo okay waa jeclaan lahaa laakiin wax kale dheeraad si helo oo yani shaqadan shaqo ka fiican ah helo oo gumeysi aan lahayn aha oo ku rajeynaa inaad shaqo fiican heshid insha Allah de shaqooyinkan la sameeyna iska challenge waa ma fahamtay marka sidii la rabay kuma noqonayaan dad kale way isugu jiraan ma fahamtay dad wanaagsan jiraan dad fiican jiraan marka waa ka xumaa in yani dad xun aragtid ama soo martay waa iska imtixaan wax kasta waa laga baxaya ma fahamtay haddii lacala kastoo lacag isku kaa aadi lahayd oo kale wax niid aad ku heshid waxaasa sameyn lahaa ma jiraan mise ma ka fikirin waxaas ha way jiraan shaqooyin fudud oo barbaraha oo kale waa laga shaqaystaa maxaa jirta meelo kale oo cambuulo iyo Nairobi waa taqaanaa soo cambuulo la kadaa meelaha la istaagaa waxyaabo badan oo jiraan laga shaqaysto oo jecel inaan ka shaqaysto laakiin waxa uu ka shaqaystaa uma haysto soo aha gurma soo martay maya gurma soo maray maxaa gursan weyse calafka iska dhiman dabcan soo jecel ma calafka ma isku dayday mise maybe ada future le waxaas leedahay familka meel ka saar kadib guurso mise
dada waxa jiraan oo kale marka dhibku ku bato oo kale gabdhaha waliba iska gurso iska degba maxaa stresskan iyo dhibkan ku geenaya walahi anoo dhib kasta igu batay oo silac u maraya ayaga dartood familkayga silac u marayo dee wax walba la igu dhahaa ayaga dartooda aan u maraayo haddana marna guursa iguma soo dhicin sababta familkayga jeclahay inay mar walba ayaga ii noolaadaan ii farxaan farxadooda mar walba jeclahay muhiimadda ugu weyn hadda sheekadan aad noola wadaagaysa maxaa waaye sheekada muhiimadda ugu weyn waxay tahay horta halkan maxaa umaad in aan ku nafiso oo yacni waxa aa heeyo wax dhan oo ah wada heeyo inaan sheego ila nuqdad ma haysan kartid soo ma aha sababta ma dhihin ninkeed hortiisa wax walba igu dhahaysay أنا قف إلى شقالة هي ودول قادنا يسمعها بس كدول قادنا هي مركا المحلها هي حاكلو ترى يعني هبينك عمل وبحث أوتني هذه ساعة أوتن مركي أدو يعني قف ما أنت نسكت وريجا يعنو جريس هاي وشقانا ودرامي كرتا سماها يعني ما هبينك ينو نستوى ما يوصح وقت دار وصح وروا سماها صح يدا أنت بما تقاني بحد هذه أنت أنا قبل دي يا يقص كيعين أو قبل دي دس إيه إلى عليها سيحنين سمر قد أنت حيوق صبتنا هبين إمالين سوجدوا وليد إيه إلى يعني هبين وايل أنا هبين كشقم لي سماها وهنا استحضاء سو هبين كبحدا ساق وليد إيه إلى ما بالكين كنت مسيحن كنت تودي أكو قوانين فدي قاسنا مكو قليلا فريستو تيفي قاسنا ما دابن كنت راجع ودي تيفي قلنا دابته فدي مو فريسي قرت محله قولي سو كم شقيس هذه ها قولوا كشقي يعني ميد بتكار عمل يعني ناك تعمل أو كنيات وش قيس عمل أي قدي قيسا قرته مركا marka waxa dhahday dhimo lahana dhahay saas silcaasa ku jiray ayadoo saas ee tahay bay waxa isirahaysaa maxamed waakeysid wax si fiican igu baalkeenaysid reer baadiya tahay xagga ka imaada xagga laga keenay ma fahamtay adi shaqadii oo ku heshiiseen soo ma qabanayna shaqada ana ku heshiiyay waxa tahay cuntadaas in aan u kariyo ina gabadhaas u heeyo saddexda waqti ina cuntada u kariyo ina gabadhaas u heeyo ku heshiinay intii waa sameeysaa intii aan sameeyay qaali buuq daga hadal maxaa dhahay wax kasta igu sameeynayeen isdheeyna gabadhan walaasha waa isdheeyeen way igu sameeynayeen marka adiga kasta waxaas leeyahay maadaama ay Soomaali tahay adna Soomaali tahay in yani ku damqanaysaa isdheey gabar walaasha waa iyada ku dareemi kartaa iyada gabar isla tiin bas dhahay inta aan kama helin maxaa dhahay caay aflagaado wax kasta ay dhigi jirtay aan iska dul qaadan jiray shaqaalaha tahay iska dul qaaday leen meel kale ma haysatid maanta aadide bas dhahay adi marka uu dhahay dharka iska bedel maxaa iska bedelaysaa adi anu dhar fiican ma wadanin de waxa wax ku gatana ma haysanin lacagna ma haysanin sidaas darteeda marka ku qasbanahay inaan diriciga ku taagnaado ayadana dirac kuma siinaysay ma haysti maxaa u dhibaysay si toos ma haysti hadaa dhaho maxaa dhar la'aan ku dhiga bay dhahaysaa aflagaadada iyo caayada iyo waxay ii geysanaysaa wax walba iga danaysaan baa tahay kana tahay iyo de wax walba ay caanayso qof oo hurdaay waa dareemi karta soo ma xir camal yani kaamiradu ku qabanaysaa dadka ajnabi ba kala tihiin qofkan gaaraatay soo maaha marka kaamiradu waxay dhahaysaa kaamirada iska ilaali kaamiradu iyo ku qabanin kaamirada marka kaamiradu guriga ku xiran guriga dhan kaamira ku wada xiran agarate soo kaamirada iska ilaali qolka ninkayga waaye marka inaa maxaa lahaa foojignaata loo baahan yahay maxaa iska ilaalinay marka yani waxay ku leedahay yani habeenka markaas xiriirsa qaawin oo kale qaawin سي وسيح جرت مرك تسيد عادي دركيغا ku seexanay marka ku shaqeeyay ku seexanay sax kooxaha kala dhibka liigu sameyn jiray waxay ahayd mid takor yani qof walaasheed camal igama dhiganaynin naagta shaqaalaha camal bay iga soo qaadisay fahamtay yani adi waxa ka rajeynaysaa jiray iyo waxyaabaha meesha kala kulantay ha ana waxa isdhahay gabadha gabar walaasha waayo ku damqanaysaa oo waxa isdhahay yani gabadha si dhig baa wadaagtay Soomaali baa tihiin qof de ku damqanayo waaye walaasha waaye isdhahay sida ana booska ay ka romantic ma soo bixinayda marka waxyaabaha hadda saas u weyn oo isku qabsateen hadda ima sheegaysid unless aad wax qarinaysid TV hadaawan de wax dib weyn ma aha adi TV na daawad meesha ugu tagay iska fiicnaa ilaahay oo inaa maanta ku nafis arab waxa tahay qofka maxaa lahaay lama dhaho de waxa ka soo shiiray iyo insaan iska bedel iyo ma la dhaho ma fahanti qofta hadaa wax inoo sheegto baahantid meel gooni looga sheega samaha sax laakiin iyada waxa waaye ninkeeda horteed wax kasta igu dhahaysay dhar may ku siisa marka dhar imaysiin dhar kale ma haysan adigana أنا درك الميسن أنا وحياة واسو كل سيدة أقول حمانا صوتها من التكار واي يعني فريقها فريسانين يو تفيق هداوان تفيق إذا أسكال هذا يقرأ وتحتاري بمهاركي لكن ما أنت باس كان إذا كرو يجمع صباحين هذا أيضا مش غيسي سما أيضا مش غي هذا قولي كلاك شقي أوكي كدي بسيء قاستين أو سو تكتيت محاسن عاي كدي بحس مي حدا يفهم الكين قحوتك على جسوا دتيجي
marka inaan baxaa rabaa sababtoo ah markasta dhaga hadal iyo waxa muu dulqaadin kari soo maaha صح qof oo kugu dhaga hadlaayo oo ninkeeda hortiisa kugu dhaga hadlaayo dhibkeeda leeda soo maaha صح marka kasa لين كان يسوي دجاج حساساتي ها وانا la soo dhajiyaa ku dhahay ma ku fasixi kariib suurtagal ma yahay bay igu dhahday ما لقوا سو دجي بس ايضا كان تجي مركز ayada rabay in aniga kaga tago de noloshaas silca inaan kaga tago اها arabi qofa ku naxariisanaynin oo sideen gabadha walaasha waaye qof ayadu maanta saa in ii gashay in loo galo marata moogtay adiga ma tiri markii hadalladaas oo kale ku dhigi jirtay ma dhahday waxa say dhihin gabar walaashaad oo kale ahay haddaa kuu shaqeynaya xataa inaa kaa kuma liitama soo celin jirin hadal kuma soo celin jirin Aha. kadib waa kasoo tagtay haye maxaa kaloo dhacay kadib waa kasoo tagay reer baa u tagay reer baa hadda u shaqeeya alxamdulilah laakiin iyaga sida hore ima baalkeeya laakiin silac ugu jiraa alxamdulilah laakiin sida hore ayaga ima yeelaan sida gabadha ii gashay ima yeelaan laakiin weli yani sidii aad rabtay maaha sidii aan rabo weli adiga maxaa kuu qasbay adoo gabar inaa meelaha shaqo ka raadaysid saas u shaqaysid faamilkaaga maxay qabtaan aabahay curyaan waaye hooyaday walaashay libiya ku xiran tahay hooyadayna ilmo yar bay haysataa ma shaqayn karto adiga ma weyn faamilkaaga familka anigii gabadhaasaa weyn labadiin ma wada weynaan kartid labadiin yaa weyn iyadaa iga weyn libiya ku xiran tahay hadda reerka waxu shaqeeyaan unbaa ka jira Aha. aabbahagan maxaa ku dhaca tiri aabahay curyaan waaye luga laga gooye Aha. ayagana waxay joogaan ayaga waxay joogaan xaga dheer qaxootiga okay ayaa qaxootiga joogaan Aha. waa gartay marka nairobina waa taqaanaa sidaceeda cid maanta wax ku gadaysa ma laha gabar baa tahay haddaad sidaas kusii socotana waxaa noqonaysaa darbajifa iska noqonaysaa sabaha soo xoogaaga xalaasha inaad ku shaqaysato way fiican tahay sax sax adoo xoogaaga xalaash ku shaqaysanaysa lagu silcinayaa lagu naxariisanaynin wax walba lagu dhahayaa oo xitaa lisdhaynin qofkan soomaali waa dhiiggooni la wadaaga xitaa lisdhaynin ma fahantay sax so dad imisa qof usoo shaqaysaadi wax badan oo soo shaqeeya imisa family camal 4 family marka dhibaatada aad sheekeynaysa maxaa gabadhaas ugu sheegaysaa ma gabadhaas unbaa dhibka u aragtay mise yani maxaa ayad u taageeraysanaysaa iyadaa ugu daran laakiin waxyaabo kale waa soo arkay laakiin iyadaa ugu daran ma fahantay dee dadka kale waxbay may dhihin waxba igama sheegin laakiin iyada way midabta kooreysay aha so hadda family la shaqaysaa maxaad macsantahay marka ayaga hadday haddan isku dhacdin kuwa kale usii tag mise yani nolosha sida kale maxaa rajeynaya wallahi nolosha haddii ay isku kaa aadinaan lahayd maanta haddii lacag heli lahayd oo kale yani meel baan hagaajisan lahaa yani noloshayda ku maareyn karo aa samaysan lahaa waa iska fahmi kartaa berika maalin oo kale baxa waa lagu dhahayaa 6 saac oo kale guriga waa laga soo fiijinayaa ayar haddaa isku dhacdiin ma lis dhahaa qofkan guri ma haysto lisma dhahaa 6 saac habeen ma lagu soo fiijinayaa maamo waxaa jirta xitaa u shaqeynayay oo maxaa la dhahayay yani gabadheeda isku yara dhacanay waxba ay dhahay maxaas ii dhahaysaa si anisaas igala hadli kartaa hooyadeed bay la soo hadashay hooyadii ordis ayay imaaday waxay dhahday gabadheedi maasaan dhahday ma dhihinaa de waxaa iska dhahaysaa maya waxaas ma jirtay dhahday barya adoo raali boorsadaada qaado lacagtan bishii iguma hadda ma heli keliya baxa iska baxa saacadan 6 saac habeenimo maraysaa marka dadka soomaalida saas u bateen naxariis la-aan waa ay kuligooda sax dad kaloo qaraabo iyo adeeryaal wax ma jiraan miyaadi oo maya adeero ma jiraan waxay caawiya ma haystay inta wax qaraabo ma ku haystid meeshan adi maya aha so lacala haddii wax ma seef garaystaa mise wixii intii hore aa shaqaysin hadda waa kugu baxaan maya wax ma sif garaysan kara sababtoo ah maal familada waxaa loo shaqeeyaa 14 kun 13 kun 12 kun loo shaqeeyaa soo familkii kama badno iyo ani anaxta wax kale 10 shilin baa ka reebta wax ka reebanay inta kale waa diraa see noloshaada wax u bedeli doontaa marka noloshayda inta ay familkayga iga daran noloshayda ani dhib kasta familkayga waa u mari karaa dee iga dhiban soo maaha walaalada iga yar waxay haystaan ma laha so shaqo kale ma raadisay mise un haddaa shaqo raadsid guryaashaas uma ka raadisaa oo shaqaalaha ka noqotid shaqo maybe de meela guryaasha laga shaqeey ka duwan ha noqoto maqaaxyo canjeero la dubaa oo kale qabiil baa halkan wax laisku siiyaa yani qofka neetu waxaa waaye qabiilkayga waaye camal ama wixii dadka isxigta camal wax laisku siiyaa isku dayay inaad raadsid adi waa isku daya laakiin jaanis iyo waxaas ma u yeelan sababtoo qof markuu guriga shaqeynayo waxaa waaye xabsi waaye oo ma bixi karti meel ma aadi karti intee u socotaa lagu dhaha anaga managa amar qaadanine xagee aadaysaa lagu dhahayaa so 4 saa guriga ka shaqaysid waa shaqaysaa 4 saaca waa shaqeeyaa xitaa marka qaar markaa saxda waa liisoo kiciyaa kaali waxaan qabo waxaan dhaqo lii dhahaa qoftaa way hurdaysaa xitaa nafeeleeda lisma dhaho laakiin adiga cuntaa karisaa sax ani cuntaa kariyahaa so maqaaxida oo kale cuntaa laga kariyaa sida canjeera la dubaa canjeer soomaali ha noqoto canjeer maya ha noqoto bariis ha noqoto dadkana waqtiyaala la siiyaa maybe qofa waxuu shaqeynaa subaxii ilaa 8 saac oo kale
lacag ahaana kaaga maxmuu ku guriga kaga shaqo masku dayna maqaayada karaasi shaqo noocaas oo kale ah ها لكن shaqada waxa waaye guriga Nairobi dadka ali kireysanaysa 5,000 ah halkii qabso maaha ayagana kulli 5,000 kama badna maqaaxidaha shaqada laga shaqeeyo okay taas marka waxa leedahay hadaa heshid oo kale waxa laga yaabaa in wili kari iyo cunto kaaga baxda hadana ها cunto kare iga bixisaa familka lacag iga rabaan soo taas suurtagal oo ii noqon weyday halka kaliya aragtid oo ku sahal wuxuu noqday in guriyashka shaqaysi ها inta soo okay وجعلان laakiin in wax kale dheeraad si helo yani shaqadan shaqo ka fiican ah helo oo gumeysi aan lahayn aha ku rajeynaa inaad shaqo fiican heshid insha Allah dee shaqooyinka la sameyn iska challenge waa ma fahamtay marka sidii la rabay kuma noqonayaan dad kale way isugu jiraan ma fahamtay dad wanaagsanaa jiraan dad fiicanaa jiraan marka waa ka xumahay in yani dad xun aragtid ama soo martay waa iska imtixaan wax kasta waa laga baxaya ma fahamtay haddii lacala kastoo lacag isugu kaa aadi lahayd oo kale wax niid aad ku heshid waxaase samayn lahaa ma jiraan mise ma ka fikirin waxaas ها way jiraan shaqooyin fudud oo barbaraha oo kale waa laga shaqaystaa maxaa jirta meelo kale oo cambuulo iyo Nairobi waa taqaanaa sama cambuulo la kadaa meelaha la istaagaa waxyaabo badan ayaa jiraan laga shaqaysto way jecel inaan ka shaqaysto laakiin waxa uu ka shaqaystaa uma haysto sama aha gurma soo martay maya gurma soo maray maxaa gursan weyse alfka iska dhiman dabcan soo jecel ma calafka masku dayday mise maybe adaa future le waxaas leedahay familka meel ka saar kadib gurso mise dada waxaa jiraan oo kale marka dhibku ku bato oo kale gabdhaha weliba iska gurso iska degba maxaa stresskan iyo dhibkan ku geenaya walahi anoo dhib kasta igu batay oo silac u maraya ayaga dartood familkayga silac u marayo dee wax walba la igu dhahaa ayaga dartooda aan marayo haddana marna gurso iguma soo dhicin sababta familkayga jecel yahay inay mar walba ayaga iyo noolaadaan ii farxaan farxadooda mar walba jecel yahay muhiimadda ugu weyn hadda sheekadan aad noola wadaagaysa maxaa waaye sheekada muhiimadda ugu weyn waxay tahay horta halkan waxaa umaad inaan nafis ku nafiso oo yani waxa ah heeyo wax dhan oo ah wada heeyo inaan sheego ila noqdad ma haysan kartid sooma